sidoo kale waxaan matagay masaabiir isku xiran oo 8 xabo mar 6 xabo marjiingado waxaasan matagay aan soo matagay silig iyo xumbacad laf waxaan arkayay markaas basiirada markaan fiiriyo laf iyo wax karfaman oo guriga ii yaala inay ka soo baxayeen warqado oo dhiig oo magacayga ku qoran yahay baabaa dadka qayba firdhanaysa intay gubtaaneen way firdhanayaan iyaga dhan waxay noqonayaan wax budo camal ah ay baan noqon qayb waa basayaan tan basay noqonayaan markaan quraanka akhriyo gaariyay wadatay gaariga la dhacay kadib qoortu ka jaray السلام عليكم magacayga waa hodan xaaladeyda hadda waan fiicanahay ma sha Allah wallahi waxyaabo badan baan soo maray xanuunkan horta wuxuu ugu bilowday 2013 xilli aan guursaday marka 2013 markuu ugu bilowbanay wuxuu ugu bilowday maamo waxa jirtay sodohday ah علشان ويلك أبيهيسا قبي waxay ka xili kasta way imaan jirtay waxay keen jirtay guriga biyo oo markaas waxay dhigi jirtay 10 waaye biyaha guriga ku seerin jirtay waa 10 waaye waxyaabo badan oo ka difaacaya guriga gali jirtay qolka jiifka fadhiga kulli jikada meel kasta oo ku soo shubi jirtay aakhir markii dambe waan ka shakiyay biyihii daaba ay markasta imaanayso keenayso biyihii maalmaha kamid ah waxaan sameeyay gurigan ka soo xirtay waxaan ku yiri guriga sun buu leeyahay maanta lagu mashwa okay bay tiraahday sun haduu leeyahay guriga wareegiisa ku soo wareejisay biyihii ku soo shubtay hadii ay biyihii ku soo shubtay aniga waxa ugu bilowday marka cabsi waxa ugu bilaabatay inaan ooyo marka qaybtood aan guriga aan cabsado aan ooynayo ay ugu bilaabatay xanuun kalkaas ugu bilaabay tan waxa la igeeyo quraan saar muddo kadib quraanka hadii la isaaray markaas aan xanuunsaday oo anigiina kala tagnay baa xanuunka ugu bilowday intaan halkaan imaan ka hor horta waxaan la kulmay quraan baa la igeeyay quraan saarka hadii la igeeyay waan xanuunsaday hadii wixii iga hadleen waxay la soo saaray qoryo iyo wax isku duuban waxay dhahan qabuurahan u gelinay kadib keena la dhahay waa la soo saaray way keeneen oo qori iyo laf iyo waxay ahaayeen maro isku duuban waa la gubay aakhir waxa dhacday inaan halkaan imaaday markii dambe halkaan markaan imaaday waxa dhacday inaan xanuunsaday inaan maalmaha kamid ah inta quraanka isaariiseen aan soo matagay silig iyo xumbacad aan soo matagay gurigan tagay quraana la igu saaray hadana quraanka markii guriga la igu saaray sidoo kale waxaan matagay masaabiir isku xiran oo 8 xabo mar 6 xabo marjiingado waxaasan matagay oo dhuunteeda soo maray maalin baa waxa dhacday waan baxay waxaan raacay mooto aniga markaas meel aan socdo ma boogiba waan tagaysaa u sii ninka waxaan ku iri badda igee badda geynaysa inta iga bix meesha dhan aan u tilmaamay wuu i wada ninkii baddu igeeyay badda markaan tagnay ninka wuxuu yiri badda maxaa ka rabtaa badda doona markaba ay taaganaan dhahay dada igu sugaaya badda igee baddu igeeyay markaan ka degtay bajaasteena waan socday baddiyaan aaday ninkii iga daba yimid wuxuu yiri walaalay ka soo noqo meeshan baddan yaad ku dhimanay cidna joogtay isaga soo noqo meeshan ha ku dhimanay ninka quraan aan u daarnaan markaas waan ooynayaa aan badda ku sii socdo war dadkan uma jeedid miyaa baan leeyahay badda ii taagan dadkan quruxda badan baan u socdaa taashash ka xiran ee taagan badda dhexdeeda ninkii marka uu igu soo dhigay xijaabka uu ku dhigay walaalay soo noqo leeyahay kadaalan u soo fiiriyay ninkii aan ka cawdo bilaystay naga la cawdo billahi markaan iriga badan taagana caadiyan soo noqdo miirkaygu waa yimaad wixii dhanna ma arkay hal xabo badii war maxaa meeshan ay keentaan barniinka ku yiri meeshan igu soo kaxaysay dawladda ay yiri buu yiraahday igee meesha iga soo kaxaysay ugu celinayay waa ka xigay gurigu keena waana la isaanay
maalintan quraan saarka arkay in imaaday waxaan arkay oon u arkay qabuuraha oo la ii gelinayo ay igu jiraan anoo karfaman oo qabuurta dhexaala ilmahayga oo kafman oo qabuurta dhex yaala waxaan arkay ummad badan oo aanan garanaynin markaas dadkaasaan arkay qaybtood waa ila hadlaysaa qaybtood waxay leeyihiin noloshan kuu diidanahay kuwaba waxbay idhahayaan maalinkii xigay markaan kusoo noqday quraan saarka waan xanuunsaday markaas iga dul hadleen wixii sheegayaan anaga markabka usoo dirnay waxaan kusoo dirnay waxaa dhahaya ninkii aan kala tagnay iyo sodohdii aa dhahay waxaan anaga usoo dirnay markabka anaga usoo dirnay inaan ka haysanaan rabnay oo aan ka wadno meeshaba reerkii ka fogeyno reerkeeda iyo gurigeeda maalin maamaha ka mid ah quraanka intaan joogo waxaa dhacday inaan xanuunsaday laf waxaan arkayay markaas basiirada markaan fiiriyo laf iyo wax karfaman oo guriga ii yaala boorsada iigu jira markaan arkay quraanka haddii la isaaray guriga laga soo saaray laftii iyo karfantii anoo quraanka ugu socdo baan arkayaa gurigaana laga soo saaray markaas anoo quraanka jooga guriga ciddaa loo tilmaama guriga laga soo saaray guriga markaan tagnay sidoo kaleeto boorsada dhar baa laga soo saaray markii quraanka la isaaro mariyo waxaa laga soo saaray maalmo kale waxyaabo xashalaad bahal xataa ku jiraan oo nool ay ku jiraan laga soo saaray waxaa dhacday maalin kale sidoo kale quraan intii la isaaro inay ka soo baxayeen warqado oo dhiig oo magacayga ku qoran yahay oo guriga la soo gelinayo aniga oo joogo guriga oo caadiya baan waxaan arkayaa warqado guriga la soo gelinayo oo la soo gelinayo guriga shamaca hoostiisa la soo gelinaya mar sariirta hoosteeda la gelinaya mar boorsooyinka la gelinaya mar iridda dacsada la gelinaya caadiyaan u arkaya waxa gelinayaan waa arkaa waa nin waxyaabahaas kala duwan oo aan arkayo markaan quraanka ku akhriyo way gubanayaan qaybkood waa baabaa dadka qayba firdhanaysa intay gubtaaneen way firdhanayaan iyaga dhan waxay noqonayaan wax budo camal ah ay baan noqon qayb waa basayaan dambasay noqonayaan markaan quraanka akhriyo qayb kamida way calaacalayaan say u calaacalayaan oo ku dhamaanayaan qayb waa islaamayna bay leeyihiin oo kaaga baxayna markaan quraanku akhriyo waa kulli waajin aan arkaa marka qayb waan arkayaa in dadkii de wixii waxa ii sameeyay meesha waa la geenayaa waxa lagu sameeynaa mar waxa la geenayaa meel markaas uu leeyahay afgooyan jooga kale waxaan arkayaa meesha uu degan yahay meel beer mudulle beero dhexdood geedo musbaar la ii gelinayaan ku arkayaa markaan quraanka akhriyo marna gurigan jooga marna quraan saarkan jooga waxaan arkayaa geedaha oo musbaar la gelinayo xargaa lagu xirxirayaa marmar geedka dhan baa la isku keenayaa markaas ay dinay qabanaysa quraankan akhrina way furmayaan xargihii dhan fararagay ka dhahayaan aayadahan ku akhrinayo waxaa kamid ahaa watawcu ma tatlu shayaadiin waxaa kamid ahaa aayatul kursi waxaa kamid ahaa ikhlaaska kulli baan ku akhrinayo maalmaha kamid ah anoo quraan saarka ka baxay waxaan doontay baaf dharaan rabay inaan dhaqdo waan iska baxay waan tegay magaalada xamar waan soo wada maray gudaheeda aakhir anoo meel maraya waxa ay soo wacday hooyo xageed joogtaa ma aqaan meelan joogan ku iri meel ilaahay leeyahay jooga xag ii tilmaan meesha joogtid ma garanayaan kadib waxa ay soo wacay wiilkay qabay waxaa yiraahday ii sheeg meesha joogtid ma aqaan dhahay meeshan jooga cid agtaada joogta ma jirtaa buu igu yiri cid agteeda joogta nin aan u geenin kabar haysto oo alaab gadgadayaan waxaan ku yiri ninkaan ku rabay la hadal ninkii telefoonku iga qabtay wuxuu yiri yaa waay ninku ma aqaan baan ku raado ku rabaa wuu la hadlay wuxuu yiri hay walaal wuxuu yiri gabadhaas way xanuunsan tahay ii hay walaalow aan kuugu imaaday xagee joogtaa wuxuu yiri waxa ugu timaadaa dabkay taag joogtaa dabka ugu imo ninkii aniga waxaan ku goortu teleefankayga isiyaan waxaan dhahay waan baxayaa may walaal ha bixine taala joogo dhahay inta lagu imaanayo inna ima imaanaysaan kadib wiilkay qabaa yimaada isagii baan inkira xataa isaga ma garanayaan maba aqaanaan ninkan
waa lay soo kaxeeyey xaafaddaa lay keenay qur-aanaa laysaa isma celin karo maskaxdeeda waa joogtaa laakiin ma is celin kari maxaa yeelay waxaa dhacday inaan soo maray ciidan aan soo dhex galay ciidankii markaan soo dhex galay waa niqaabnahay niqaabka fur baa laygu yiri ma furaayaan waa iska socday sidaan isagoo caayaan ku socday midaa soo istaagay xabadu ila soo istaagay istaag buu yiri ma istaaga midaa wuxuu yiri marka waa naag maseersan isaga leexo ha iska martay wadada rii ahaanay bay ila tahay waa iska socdaa alxamdulilah horta markaan adkaar badan iyo duca badan iyo istifaaq badan la imaaday oo aan ilaahay isku xiray xanuunkii waan ka nafisay waxaasoo dhan waxaa samaynaysa maamada sodohda ii ahayd iyo ninka aan kala tagnaa dadka ay soo adeegsatay aaday u badnaayeen waa kuwo waxay joogaan Mareykan say sheegayaan kuwo carabaha kuwo afgooye kuwo boorama kuwo garowe kuwo meel bay joogaan intaas dhan waxay leedahay waxaan ku celinayaa wiilkayga waa inuu qabaa isaga aysan reer kala yeelan oo ilmo kale aysan dhalin maamadaas hawshaas aysay markii aakhir waxay ku dambeysay oo ku dhacay iyada maalin maalmaha ka mid ah gurigeeday ka soo baxday subax iyada iyo odaygeeda gaarigay wadatay gaarigiyaa la dhacay kadib qoortuu ka jaray gaarigii wayna dhimatay gabadhaasoo gabadheeda baa muddo xanuunsanayd wax badan bay xanuunsanayd waxaan la yaabay waxyaabo ay matagtay waxaa ka mid ahaa masaabiir waxaa ka mid ahaa jiingado waxaa ka mid ahaa faraanti waxaa ka mid ahaa silis marka waxa weeyaan waxyaabahaas badan baan la yaabay gabadhaas ay matagtay haddana alxamdulilah jiro badan bay soo martay haddana way fiicantahay alxamdulilah waxyaaba waxaa keen wax loo sameeyey waa la siiyey sixir baa loo sameeyey jin baa loogu soo dhiibay iyagaa jirkooda geliyey say sheegeen qur-aanka ilahay baa lala kaashada allah lala kaashada subxaana watacaala ilahay qur-aankiisa lala kaashada qur-aan unbaa la saaray qur-aan baa la saaray qur-aan unbaa la saaray marka khadba nooc qur-aankaas unbaa ilaahay qur-aankaas unbaa ilaahay ku daweeyey alxamdulilah hadda way fiican tahay alxamdulilah baa mahadi shukr iskale aad bay u fiican tahay hadda way isbedeshay maamadiina ilaahay waa ka reebay oo wax u sameynaysa waxyaaba badan bay soo martay laakiin hadda waa ladan tahay alxamdulilah bismillahi raxmaan raxiim waa ilaahay mahadi gabadha maanta aan wareysanaynay hodan iyo hooyadeed oo ka dambeysay oo barnaamijka faahfaahinaysay wuxuu ahaa awood anaga aan leenahay iyo wax anaga karti aan leenahay gooni ah oo aan wax ugu qabanna ma jirto waa un ilaahay wuxuu ahaa wax una karsiiyey taasna ilaahay baa uga mahad celinaynaa midda kale waxyaabaha la yaab kale waxay tahay gabadhu inay arkaysay caadi u arkaysay jinka maalan mama qaarkood ay isaga soo dhigayeen ninka qaba oo kale wadaadkeeda intay isaga soo dhigaan ee guriga ugu soo galaan bay wax ku dhufan jireen ay garaaci jireen markay wax ku dhuftaan ay garaacaan markaasay leedahay ninka iga qabta ma arki karo ninkan maalan tusaale asoo shaqada jiro oo ninkeeda maqan baa jin ninkeeda isku soo ekeysiyey baa qolka soo gala qolka markuu usoo galo markaasuu caaynayaa markuu caayo waxaa leedahay ninkan ma rabo bis waay ha isii daayo sababto maanta dhan buu caynaya oo ninkii maba joogin intuu jiraa shaqaduu jiraa markii waalidkeeda ay weydiiyaan ninkii shaqaduu jiraa war shaqada intuu jooga hadduu guriga taagnaa weydiinaya caynaya ninkaan lama joogi karo marka waxaasoo dhibaato ay gabadha ay soo martay ee ka mid tahay masaamiirta ay soo matagaysay masaamiir ay matagaysay oo weliba hal iyo laba aan ahayn qaarkood intaan rumaysan weynay oon la yaabnay waxaan yaraantaada ma cunta xataa su-aalaha waan weydiinay intaan la yaabnay wax tiro badan ay soo matagayso sababta waxa ugu wacan maamada oo sixirka sameynaysa waxay adeegsanaysay jin qaarkiis awood u leh inay jirka bini'aadamka wax geliyaan masaamiir qaarkood faraanti baa ka mid ah waxaa ka mid ah silsilada ka mid ah waxaa ka mid ah silsilada sawirkeeda aan ahayno oo magaca ninka uu ku qoran yahay ninka loo rabo gabadha magaceeda uu ku qoran yahay waa silsilad magaca ninka ku qoran ee soo matagtay iswadato wax caqligaaga galaya maaha qof bini'aadan ah inuu jirkiisa ka soo baxaan silsilad wadato in jinku inta isku soo ekeysiyaan gurigay usoo galaan dagaal cari dhul ah isan yaraysanin maamada wax isan u yaraysanin shayaadiinta nooc kasta ay adeegsatay maradada cafaariida wax walba ay adeegsatay qaarkood ay isku dayeen inay gabadh inta maskaxda ka qabtaan kaxeeyaanba ee doon raacsiyaan ee waddanka musaafiriyaan si loogu geeyo ninkaa oo joogo wadamada dibadaha yurubtaas meel ka mid ah si loogu geeyo waxaa ilaahay mahadiisa ah markii gabadha sabar badan la timid oo ilaahay isku xirtay oo duco badan ay samaysay dadka qaar baa kule ii duceey ducada lagu duceynaya waxaa ka fiican qofka asaga inuu duceysto oo ilaahay isku xiro ilaahay cid wuxuu ahaa turjumaan aysan kaaga noqonin adiga aada isu dhowaatid
oo ilaahay adiga aad isku xirtid oo aad qalbigaaga nadiif ka dhigtid. ilaahay quraan wuxuu ku yidhi waidaa sa'alaka cibaadii canii fainii qariibun ujiibu dacwata daaci idaa dacaan. marka qofka waxaa la doonayaa asaga ilaahay inuu isku xiro oo ilaahay naftiisa u dhiibo suu ilahay ducadiisa u aqbalo oo qalbigiisa nadiif ka dhigo. gabadha marka ilaahay isku dhiibtay islaantii dhibaysay oo maalin walba sixirka markii laga baabi'iyo mid kale cusub oo hor la samayn jirtay oo marba saaxir cusub la heshin jirtay. xataa waxaa ka mid ah saxaro qaar la heshiisay carab kuwa ah ee lacag siisay. waxaa ka mid ah kuwa Soomaaliya afgooy jooga ayadana waxay joogtaa gobolada Soomaaliya gobolada dhexe joogtaa Puntland iyo dhulkaas goboladaas ay joogtaa. marba saaxir ee lacag siiso qaarkood dahab ay siiso dhahday gabadhaasaan rabaa wiilkaygan u rabaa. waagi dambe ilaahay wuxuu qadaray ayadoo gaari wadato inuu shil la gasho oo gaariga qoorta ka maro ay dhimato. waa dulmiga ay sameynaysay. qofka la dulmiyey madluumka ah ducadiisa waa mustajaab. hadduuba gaal yahay xataa ducadiisa waa mustajaab. marka dadka inta badan sixirada la rafaasan xanuunada kala duwan rafaasan ama xasadka joogtada lagu hayo ilaahay isku dhiib, ilaahay bari, qalbiga ilaahay ku xir, ilaahay weydiiso. ilaahay waxba lama inuu kaa qaado, waxba lama xanuunka inuu kaa qaado. waxa aad marayso waa imtixaan kaliya. marka waxaan leenahay dadka xanuunsan gabadha tusaale ha u noqdaan, ilaahay isku xiraan, istighfaarta ha badiyaan, dikriga ha badiyaan. mar hadduu dikriga badiyaan xawqalada laa xawla walaa quwata illaa billah ilaahay farajkiisu waa dhow yahay, ilaahayna u gargaarayaa. waxaad kaloo arkaysaa meesha ka fahmaysaa gabadha inta waxa loo maleegay oo ka mid yihiin masaamiirtaas wadnaheeda caloosheeda ay ku jireen qaarkood ilaahay wadnahay ku surnaayeen qaarkood geedaha inta lagu